Assalaamu calaykum. Muuqaalkan waxaa kugula wadaagi doonaa sababta ay tahay inaad wax akhrisid. Shay markii la qabanayo waxaa loo kala qaadaa shay aad ku qasban tahay qabashadiisa iyo shay rabitaanka ka imaanaya inaad qabatid. Marka shaygaas aad ku qasban tahay waxaad u bedeli kartaa shay rabitaankaaga inuu yahay. Waxaadna ugu bedeli kartaa inaad isweydiisid sababta aad u qabanaysid shaygaas. Tusaale yar haddaan soo qaadano, qashinka guriga kuu yaalo waad ku qasban tahay inaad qaadid oo banaanka iska geysid. Laakiin ka waran haddii aad isweydiiso maxay tahay sababta loo qaado qashinka? Qashinka waxaa loo qaadaa inuusan guriga kusoo urin, in haddii uu uro uu cudur laga qaado, inaysan sharaftaada u fiicnayn. Marka waxaad bilaabaysaa inaad rabtid qashinka qaadisiida. Waxaad ka soo tagtay waan ku qasbanahay inaan qaado qashinka. Waxaan imaaday waan rabaa qashinka inaan qaado. Wax akhriska ummado dhan ayaa ku hormaraan. Laakiin maanta haddii lagu dhaho wax akhri, aad isku qasabtid oo aysan kaa dhaadhacsanayn sababta wax loo akhriyo iyo faa'iidada aad ka helaysid, waxay kugu noqonaysaa shay culays kugu ah oo aad dhibsatid. Wax akhriska faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah inaad wax ka baratid maalin walbo. Haddii aad wax akhrisid waa sida maalin walbo adigoo wax bartay. Waxaadna ka baran kartaa wax walbo aad u baahan tahay. Tusaale ahaan haddaan usoo qaadano Elon Musk ninka sameeyey SpaceX iyo Tesla ninka iska leh, mar walbo la weydiiyo siduu ku bartay samaynta gantaalada ama raketka, wuxuu ku jawaabaa waxaan akhriyaa buugaag. You're self-taught? Yeah. Well, self-taught, yes, meaning I don't have an aerospace degree. So how did you go about acquiring the knowledge? Well, like I said, I read a lot of books, talked to a lot of people. Marka wax walbo aad rabtid inaad baratid waxaad ka baran kartaa buugaagta. Sida haddii aad rabtid inaad baratid ganacsiga, haddii aad rabtid inaad wax ka baratid, haddii aad rabtid inaad wax ka baratid sida caadooyinka loo bedelo, waxyaabo badan buugaagta waa ka helaysaa. Buugaagtu waa kuwo madadaalo ah, entertainment ah. Filmaan badan ayaa lagu saleeyay ama laga soo koobiyey buugaag hore u jireen, sida filimka caanka ah ee Harry Potter, musalsal socday 2002 ilaa 2011. Waa filim caana laakiin buugaa ka horeeyay waxaana laga sameeyey filim. Buugaagta marka filmaantu waxay uga duwan yihiin filimka. Jilayaasha waa lagu dooray adiga, siday u eg yihiin iyo qaabkooda waa lagu dooray. Laakiin buugga wuxuu ku siinayaa boos banaan oo aad ku buuxsatid waxyaabaha lagaaga sheekeynaya inaad maskaxdaada ku sawiratid. Marba qof walba marka si uu u arkaa, laakiin filimka uu ku dooray. Sidoo kale filmaanta way gaaban yihiin, ugu yaraan 2 saac adiga ayay socdaan, laakiin laguma soo koobi karo buug 200 page iyo in ka badan ah. Laguma soo koobi karo 2 saacadood. Mar walba tafaashiisha buugga ku qoran ayaa ka badan tan filimka. Buugga wuxuu noqon karaa saaxiib wanaagsan. Waxaa xaqiiq ah in qofka saaxiibka uu ku bedeli karo, sida nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam, almar'u ala diini khaliilihi aw kama qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam. Qofka wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkiisa. Qofka saaxiibka uu ku bedeli karaa adigoo og iyo adigoon ogeynba, sida inaad qaadatid dhaqamadiisa iyo dabeecadihiisa. Ka waran haddii aad saaxiib ka dhigatid buug wanaagsan, buug maskax lagu bixiyey, waqti lagu bixiyey, mar walbo waqti la qaadatidna wax aad ka soo faa'iidaysid, marka dambana dhanka wanaagsan kuu bedelayo. Wax akhriska wuxuu yareeyaa stresska. Waxaa lagu tiriyaa wax akhriska sida waxyaabaha dhiigga dejiya iyo maskaxda. Daraasad la sameeyey waxaa lagu ogaaday in ugu yaraan 30 daqiiqo haddii aad wax akhrisid, blood pressure-ka iyo wadna garaaca inuu hoos u dhigayo. Daraasad kaloo la sameeyey waxaa lagu ogaaday in wax akhriska uu ka wanaagsan yahay waxyaabaha kale oo ku dejinayo, sida socod inaad aado oo kale, sida inaad koob kafey ama koob shaha aad cabtid, iyo sida inaad game ciyaartid oo kale. Marka xigta haddii uu stressku qabto oo kale, wax akhris bilow. waxaan kugula talinayaa inaad quraanka aad akhrisid sida quraanka Ilaahay noogu sheegay, alladina aamanu wa tadma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tadma'innu alqulub. wax akhrisku wuxuu kor u qaadaa focuska. Daraasooyin badan waxay soo saareen in focuska bini'aadamka hoos u sii socdo maadaama technology-da iyo social media-ha notification-ku kuu soo dhacayo ay ku wadbadayaan. Microsoft daraasad ay samaysay waxay ku soo saartay in kalluunka loo yaqaano golden fish uu naga badan yahay inta focus aan bixino. Asaga wuxuu bixiyaa 9 second, anagana 8 second.
average-kana hadda lagu qiyaasay waxaana sababay in multitasking-ka aad u batay hadda laga yaabaa inaad Facebook aadid dhowr second kadib adigoo Facebook u socday aad is aragtid inaad YouTube ku jirsid ama application kale aad ku jirsid nasiib wanaag buugga wuxuu ka caawinayaa inaad focuskaaga aad train garaysid oo hal meel aad ku go'naatid inkastoo distractionka mid banaanka kaaga imaanayo iyo mid gudaha ka imaanayo uu yahay kan gudaha ka imaanayo wuxuu yahay in maskaxdaada marba meel aado oo fikradooyin kala duwan ay u kala boodo kan banaanka ka imaanayo inaad mobilekaaga notification kuu soo dhaco in qofku su'aalo marka buugga wuxuu ka dhisayaa dhanka inaad hal meel aad joogtid oo sheygaas aad akhrinaysid dhagaha u taagtid buugaagta in general way fiican yihiin laakiin waxaa jirta buugaag badan oo aanan wanaagsanayn sida challenge garaynayo beliefskaaga waxyaabaha aad aaminsan tahay iyo marka buugaagta waa in layska kala fiiriya intaas waxay ahaayeen faa'iidooyinka aad buugaagta ka helayso intaan video kale ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu